kulanti wanaagsan dhammaantiinba waa Xuseen Cabdulle ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka xilligan. Magaalada Muqdisho waxaa ka socota qabanqaabada doorashada gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya. Magaalada Kismaayo Axmed Madoobe waxa uu kula kulmay xubno ka socda guddiga doorashada ee heer qaran. Qodobada kale aan idiin waxaa ka mid ah safarka oo magaalada Muqdisho ku yimid Janaal Xuud muxuu salka ku hayaa maxaase ka jira in Villa Soomaaliya heshiis la geliyay xubno siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo reer Hiiraan ah. Mareykanka iyo Ruushka aseestaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaa idiin haynaa ee saaxiibayaal u diyaar garooba. markale kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaan ku bilaabayaa waxaa lagu wadaa maanta oo Khamiis in magaalada Muqdisho lagu qabto doorashada gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban ee Soomaaliya kadib markii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo shaqadii ka eriyay xubno oo qayb ka ahaa gudoomiyihii hore ee guddigaasi Xuseen Laki kadib markii lagu eedeeyay in ay faraha la galeen arrimo siyaasadeed isla markaana ay saaxiibo la noqdeen qaar ka mid ah xubnaha siyaasiyiinta ah ee Soomaalida ee doorashada u hanqaltaagaya. guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka ama gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo saaray shuruudaha murashaxiinta u tartamaya gudoomiyaha guddiga xalinta waxaana qayb ka ah inuu yahay xubin ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban. gudoomiye ku-xigeenka guddiga haddii uu tartamayo jagadaas waxa uu iska casilayaa xilka hadda uu hayo ee ah ku-xigeenka. codbixintu waxaa la sheegay inay tahay qarsoodi waxaa lagu codeynayaa sanduuq codbixinta ah iyadoo goobjoog ay noqon doonaan xubno ay qayb ka yihiin warbaahinta murashaxiin iyo sidoo kale siyaasiyiin kale. habraacan waxaa la soo saaray maalmo ka hor waxaana la filayaa in maanta uu dhaqan galo oo ay doorashadu dhacdo. guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waxaa hortaalla inay wax ka qabtaan cabashooyinka kuraasta qaar oo weli taagan iyo doorashooyinka hadda dhici doona. sidoo kale waxaa horyaalla imtixaan adag oo ah sidii u maareyn doonaan khilaafyada doorashada Soomaaliya kadib markii gudoomiyihii hore iyo xubno ka mid ah ay ku fashilmeen doodaha hareeyay doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland kulan kula qaatay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle Yuusuf iyo xubno ka tirsan guddiga oo shalay gaaray magaalada Kismaayo. Muuse Geelle oo dhowaan loo doortay xilkaasi ayaa wada dadaalo oo ku xallinayo tabashooyinka doorashada iyo in la raaco habraacidii lagu heshiiyey ee ugu dambeeyey kaasi oo ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ku soo gabagaboobay maalmo ka hor. guddiga heer federaal waxay booqashada ku tageen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ee taati ugu horeysay oo gudoomiye isaga oo halkaasi ku tago waxaana Kismaayo ka socda doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa la filayaa in sidoo kale ay kulamo la qaataan guddiga doorashada heer maamul goboleed ee siit ee maamulka Jubbaland. madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa guddiga kula dardaarmay in si hufan oo cadaalad ku jirto doorashada u suurto geliyaan in dalka uga dhacdo. safarka oo magaalada Muqdisho ku yimid Janaal Xuud muxuu salka ku hayaa maxaase ka jira in Villa Soomaaliya heshiis la geliyay xubno siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo reer Hiiraan ah. dhowaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa gaaray taliyaha ciidanka dhulka Janaal Maxamed Tahliil Biixi waxaana kulan la qaatay Janaal Abuukar Maxamed Warsame oo ah hogaamiyaha maleeshiyaad muddo sanad ka badan ka dagaalamaya duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xuud waxa uu sheegay inuu dagaal kula jiro dowladda iyo maamulka Hirshabeelle balse oo hadda wada hadal la furay dowladda Soomaaliya isla markaana u tanaasulay dowladnimada. Xuud waxa uu sidoo kale sheegay inuusan la heshiinin maamulka Hirshabeelle isagoo maanta ka soo degay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Janaal Biixi waxaa la sheegay inuu wakiil ka ahaa madaxtooyada Soomaaliya isla markaana loo wakiishay inuu Muqdisho keeno Janaal Xuud si uu wada hadal ula galo Villa Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilaabay inuu xal u raadiyo caqabadaha ka hor imaan kara inuu saameyn ku yeesho doorashada kuraasta taalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo maamulkiisa muhiim u ah. xog aan helna ayaa tilmaamaysa in siyaasiyiinta beel ka mid ah shacabka reer Hiiraan iyo hoggaanka maamulka ay saddex u qaybsan yihiin markii loo eego doorashada iyo arrimaha maamulka Hirshabeelle. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayti Cusmaan, Jenaraal Xuud iyo qaar ka mid ah duubabka dhaqanka waxay ku xiran yihiin Villa Soomaaliya waxayna diidan yihiin in Beledweyne uu tago madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaabe. gudoomiyaha Cali Jayti waxa ay Villa Soomaaliya kula heshiisay inuu doorashada isaga maamulo kana shaqeeyo sidii loo soo saari lahaa xubnaha ay damacsan tahay madaxtooyada Soomaaliya.
waxaana arrintaasi ku garabgeli doona saraakiil uu qayb ka yahay Jenaraal Xuud iyo qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ee gobolka Hiiraan. garabka labaad ayaa ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo kaligiis ah. Dabageed waxa uu rabaa in beledweyne uu yimaado Cali Guudlaabe isla markaana uu daafuro doorashada golaha shacabka kadibna uu madaxweyne ku-xigeenka oo isaga ah u maamulo 25 kursi ee taala magaalada beledweyne. Dabageed lama sheegin murashaxiin uu ku xiran yahay, balse waxaa la sheegay inuu isaga door bidayo inuu gacantiisa ku maamulo kuraasta taala magaalada beledweyne, waxaana sababta lagu sheegay inay tahay wax la xiriira damac dhaqaale. madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa ah garabka saddexaad ee ku lug leh xaaladda gobolka Hiiraan. Guudlaabe waxa uu dhexda u galay siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo dhibaatooyinka ka jira gobolka Hiiraan aan u wajin si dan guud ah, balse ku xira danahooda gaarka ah. sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in Cali Guudlaabe tagistiisa beledweyne waxa ugu weyn ee hortaagan ay tahay Villa Soomaaliya oo ku qanci weysa sidii uu maamulay doorashadii xubnaha aqalka sare ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. inkastoo uu socdo dadaal ay wadaan xubno siyaasiyiin oo reer Hiiraan iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle oo la rabo in sabtida lagu geeyo magaalada beledweyne Cali Guudlaabe, haddana waxaa la sheegay inuu diidan yahay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la sheegay in odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan oo u ballan qaaday in haddii dib loo doorto uu Hiiraan ka dhigi doono 2 gobol, isla markaana ay dawladdiisa boosas wanaagsan sii doonto dadka u dhashay beeshaasi. sidoo kale Jenaraal Xuud ayaa la sheegay in loo ballan qaaday in laga dhigi doono diblomaasi ama xil sare looga dhiibi doono gudaha ciidamada militariga Soomaaliya, waa haddii dib loo doorto madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda Hiiraan hadda wax door ah kuma lahan ra'iisul wasaare Rooble iyo xubnaha midowga murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya, waxaana waqti badan gelinaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibadiisa Villa Soomaaliya. dadka ay kuraastooda taalla Hiiraan waxaa ka mid ah agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo muhiim u ah Villa Soomaaliya inuu ka mid noqdo golaha shacabka. Hirshabeelle ayaa dhowaan shaacisay doorashada 12 kursi oo taala Jowhar, waxaana la filayaa inay si degdeg ah u bilaabato doorashada kale ee taala kuraasteeda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dhibaatada ugu weyn ee haysata madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa ah in kuraasta ugu badan doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka imaanaya Hirshabeelle ay yaallaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halka maamul goboleedyada kale ee dalkana magaalooyinka labaad ee taalo kuraasta ugu yar markii loo eego xubnaha ka imaanaya maamul goboleedyada. qabiil dambe wararkan ayaa soo gaarnay, markaana waxaan eegaynaa Mareykanka iyo Ruushka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu u badinayo Ruushka inuu weerari doono Ukraine, balse waxa uu ka digay in Mareykanka uu ka bixin doono jawaab adag oo ku wajahan Ruushka haddii ay weeraraan ciidamada dowladda Ruushka waddanka Ukraine. Joe Biden waxa uu sheegay in Ruushka uu tijaabinayo reer galbeedka gaar ahaan NATO, taasina aysan ahayn wax cuntamaya oo uusan Mareykanku aqbali doonin. Biden waxa uu sheegay in madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo la kulmayo cunaqabateyn ebed aan soo marin haddii uu weerar ku qaado waddanka Ukraine. dowladda Ukraine oo xiisadaasi xudun u ah dhankeeda waxay sheegtay Ruushka inuu cabsi gelin ku hayo muwaadiniinta iyo dowladda waddankaasi, iyadoo ku baaqday in la sameeyo dadaal kasta oo diblomaasiyadeed si loo joojiyo dagaal halkaasi ka dhaca iyo cabsi gelinta lagu hayo Ruushka. xiisadda ka dhalatay ciidamada tirada badan ee Ruushka ku abaabulayo xuduudda Ukraine ayaa cirka isku sii shareertay, iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna ahayd waxa ugu weyn oo ay warbaahinta dunida iyo madaxduba ka hadlaan. wararkeennii waa naga intaa ee saaxiibayaal, nabadgelyo.